kusoo dhawow qaraaxa tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale sida aan la socno waa ciyaaryahan la saaxiib ah shabaqa waa xidig jecel in mar walba uu shabaqa soo taabto waa xidig ay balwadiisa tahay in guul uu gaarsiiyo kooxdiisa goolalna uu dhaliyo waxaan ka hadlayaa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro xidigii hore ee Sporting Lisbon Manchester United Real Madrid wiilka hadda ku sugan Juventus Stadium Cristiano saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka Talyaaniga Serie A wax gool ah ma dhalin saadaashaaduse waxay ahayd ugu yaraan 3 2 ama xitaa 1 inuu dhalin doono kulankiisa koowaad ee horyaalka Talyaaniga Serie A cadaadis kaga yimid dhammaan kooxihii uu wajahay Ronaldo ee saddexda gaaraya iyo marxaladda cusub ee uu galay waxa ay mar walba hadalheynta ka jirtaa kubadda cagta 450 gool ayuu 438 kulan inta uu joogay Real Madrid 9 sano uu joogay dhaliyay laakiinse Ronaldo ayaa 23 shoot 3 kulan ee uu matalay kooxda kubadda cagta Juventus uu tuuray wax gool aan dhalin waa in ka duwan inta ay sameeyeen ciyaartooyda kale ee shanta horyaal ee ugu waabeen qaaradda Yurub ka ciyaara warbixintaanse waxay niyadda u dejinaysaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Juventus waxaana ay leedahay ha ka walwalin Ronaldo hana ka murugoonin isaga isku filan sidee marxalad tan la mid ah waliba ka sii daran ayaa qabsatay Cristiano Ronaldo xil ciyaareedkii la soo dhaafay markii uu joogay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaaryahankan u dhashay wadanka Portugal ayaa sanadkii la soo dhaafay ama xil ciyaareedkii la soo dhaafay dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee horyaalka Spain ee La Liga kadib markii uu shabaqa ku tuuray 28 darbo ugu yaraan 5 kulan 6 kulan ayuu goolal la'aan ahaa Cristiano Ronaldo haddana goolal 26 gaaraya ayuu dhaliyay qiyaastii marka la fiiriyo laakiinse waa 26 gool iyo 27 kulan horyaalka Spain ee La Liga ogowse Ronaldo ayaa noqday goolalyaha ugu sareeya ee tartanka Champions League 3 Juun 2017 Cristiano Ronaldo ayaa goolkiisa 600 ee kooxdiisa iyo sidoo kale wadankiisa badaliyay final Champions League gool uu dhaliyay 48 kulan kadib goolkaasi 8 Abriil 2018 Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisa 650 ee kooxdiisa iyo wadankiisaba kulankii Derby Madrid wuxuuna noqday ciyaaryahankii afaraad ee si dhaqsi leh ku gaara 50 gool isagoo 33 sano jira sidaas darteeda uma baahna Ronaldo in laga walwalo laga fikiro marxaladda hadda uu kala kulmaayo horyaalka Talyaaniga ee Serie A sababtoo ah isaga isku filan ciyaaryahankan kulan walba ee uu kooxdiisa u ciyaarayo waa xidig jecel goolasha waa ciyaaryahan mar walba jecel inuu ka soo dhex muuqdo masraxyada kubadda cagta waad ku maasantahay daawashada videogan fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad aado subscribe mahadsanid